بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن شاء الله في ليهن وحبرن بان كغا حدلي دونا ولجيدada aan kale ahayna xagga dambe ayaa laga ogaan doonaa oo aan u duubayo daraaddeed. Bismillaahi, waxaynu ognahay kulligeen shacbigeena Soomaali in ay fidna weyn ay dhacday oo dagaal sokeeya ah oo in badan soconaya 40 sano kama yara. inta uu dagaalkaas soconayay waa dagaal fidna ah oo ummadda loo maleegay, iyaguna ay iska garan waayeen. markii dagaalkaa dhacay dadkii way qaybsameen. dadkii joogay waddanka waxaanu u qaybinay 2 qaybood. waxa la yidhaahdo awoodaha khayrka iyo awoodaha sharka. awoodaha sharka waxa la wixii dagaalkaa huriyey iyo wixii taakuleeyey, af iyo adin ku taakuleeyey, maal ku taakuleeyey, gabay iyo buraanbur iyo wax walba ku taakuleeyey oo ummadooda inay isku baabado isku halaagsanto ka taliyey. kuwaasi waa awoodaha sharka weyn. awoodo fara badan oo awoodo khayr la yiraahdo oo ummadda haddii bacdallahi iyaga ayna ahayn aan waxba laga arkeen ummadda Soomaaliyeed oo ilaahay ummaddan ku badbaadiyey oo kuwal khayr la yiraahdana way jirtaa iyada. middaa sharkaanu kama hadlayaba, maxaa yeelay kuwii dhintay aakhire aaday siduu nabigeena yidhi fa innahum qad afdaw ilaa maa qaddamuu. iyaga iyo allahoodii baa ishor jooga. marka kama hadlayno inta khayr kale ayaan ka hadlaynaa. waxaa weeye inta khayr kale waxaan rabaa inaan u qaybiyo 2 qaybood. waxaan ka bilaabayaa culimada Soomaali. culimada markaan leeyahay yacni dadka qaarkood culimada oo masaajidada joogto oo kutubaha aqriyo may culimo yidhaahdaan. macnaheeduna sidaa ma aha. waxaa weeye culimada markaan leenahay waa dadkaas oo diinta islaamka iyo adduunyadaba isku bartay ee isku wada ee mutacalimiinta ah ee dakaatirada ah ee takhaatiirta ah ee injineerada ah ee wax walba ah. kuwaas ayaan u wadnaa annaga markaan leenahay. ama waxaa la dhihi karaa ururada ama kooxaha oo islaamiyiinta ah. dadkaasi waxaa weeye qayb weyn ayay ummaddan badbaadinteeda ayay ka qaateen. in yar oo fidnada dhex oroday oo jihaad ku magacowday, kuwaa naftooda kulligood iskuma wada raacine intoodii cilmiga iyo caqliga lahayd ee ummadda u haysay danaha waan arki doonaaye sidoodii unbay danihii u wadeen ee iskuma ayna wada raacin xumaanta iyo dabkaa la qaaday iyo ummaddaas ee dilkeeda laga qayb galay. maxay qabteen marka? waxaa weeye dadkaas aanu ku magacawnay awoodaha khayrka ee culimada mutacalimiinta ama waxaa weeyaan dhaqdhaqaaqyada islaamka ama ururada islaamka. waxyaabaha ay qabteen waxaa ka mid ah dagaalada inay intaa dhex ordayeen si ay u kala qabtaan oo ay u kala qaboojiyaan. sidaa daraaddeedna xataa in badan ay naftooda ku waayeen. taasi waa mid. midda kaleeto waxaanu ognahay ummaddii markii haddii dowladdeedii ay burburtay oo cid u maqan aan jirin iyo siday Soomaalita iyo ceel u qodan midna, waxay marka bilaabeen ummadda inay gargaar u fidiyaan. gargaarkaas oo leh xagga muxuu ahaayey wixii aan la heli karo oo raashin iyo caafimaad iyo biyo iyo wax walba ah.
wixii iyagu ay heli kareen iyo wixii ummadda islaamka ah ay ugu qaylo dhaamiyeenba dowr weyn ayay ummadda badbaadinteedii ayay ka qaadeen dadka ururada islaamiyiinta ah. markii uu waddanku degayna shayga marka horeba daraaddii loo burburay ee jahliga ayay ka hortageen. jaamacado ayaa la furay, jaamacado waxaa weeye iskuulle oo secondary ama sanawiyaal iyo iskool dhexe iyo mid hoose iyo qur'aankii iyo dugsi wixii oo dhan ayaa si fiican ayay muxuu ahay uga shaqeeyeen. ilaa markan aanu ognahay intaasoo jaamacadood oo boqolaal kor u dhaaftay inay geyiga Soomaali oo dhan ay maanta ay ka jirto, oo dowlad dhistay ayna jirin ee ay dhiseen dadkaasi, oo weligeed Soomaali intii ay dowlad ahayd maynayna gaarin boqolaal ama kumanyaal digrii sidato iyo magister oo rag iyo dumarba leh in ay halkaa ay gaareen ayay muxuu ay gaarsiiyeen. oo haddana sidii ay u wadaan oo muxuu ahaay musaalaxooyin oo fara badan in ay ka qayb galeen ummadda sidii loo kala qaboojin lahaa, taana qayb weyn ayay ka qaateen. marka kuwaasi yacni haddii aan idhaahno iyaga wixii ay waddanka iyo intuu waddanku gubanayo wixii ay qabteen aan ka sheekayno ma xamilayo waxaa weeye hadallada kooban ee aanu meesha ugu talagalnay. marka nimankaasi waa saa. waxaa ku xiga bulshada rayidka oo iyagana sidoo kale intii aan sheegnay, oo culimmadii ay ku jirto, oo dumarkii ay ku jiraan, oo raggii kaleete ee muxuu ahay madaniga ahaa oo ama takhaatiir ah. ilaan takhtarku wuxuu noqon karaa takhtar iyo culimmada wuu isku noqo takhaatiirtii ay ka mid tahay. bulshada rayidka inta wax la furay waad ogtihiin oo magac uu jiri jiray waddanka oo dhan Soomaaliya geesta aanu degno. oo marka iyagana haddii culimmadii hore iyo ururadii iyo xagga carabaha iyo ay u qaylo dhaamiyeen, iyaguna Yurub iyo muxuu ahay dowladahaas iyagana u qaylo dhaamiyo ummadda halkaas ka gargaarayay. oo marka muxuu ahaayey jamciyooyin iyo kuwa nabadoona iyo intaasoo dhan ayay fureen, iyagana ummadda qaybtooda ayay ka badbaadiyeen. awoodaha khayrka waxaa ka mida sida aan u ognahay oo ugu xoog badan ama muxuu aan ka dhicin kuwii hore waa dadka la yidhaahdo dadka ganacsatada ah. qofku inuu naftiisa anfaco ummaddiisa u anfacaay waa shay weyn weeye. ilaahay agtiisa iyo bini aadamka agtiisaba way ku weyn tahay. marka ganacsi markaan leenahay waxaa wax la tira koobi kara ma aha, laakiin siday u kala ahamsan yihiin iyo siday u kala horreeyeen ayaanu sheegaynaa. waxaa weeyaan yacni dadka oo tijaarada keena oo maraakiibta soo dejiyo, dawooyinka iyo cuntada iyo dharka iyo wixii la mida, waxaa weeye waa dadkaas quwal khayrka ayay ka mid yihiin. iyo shidaalka lagu dhaqaaqe ee muxuu ahay aynu ognahay rag baa intaa soo dejinaya. markuu dagaalku ugu darnaa ugu xumaa ayaa soo dejinayay. kuwaasi waxaa la dhihi karaa waa ganacsiga ummadda badbaadiyey. waxaa la mida nimanka kale ee xawaalooyinka furay oo Soomaali oo kala fiinaartay oo 6 qaaradood u kala qaxday. dadkii bannaanka jiray wixii ay awood leeyihiin si ay u badbaadiyaan kuwa gudaha ku halaagsamayo, xataa dadka baadiyaha joogo $50 loo soo diro meeshuu joogo ku gaarsiiyey. nimankaasna waa quwal khayrka awoodihiisa weeye oo ummadda badbaadiyey ayay ka mid yihiin. waxaa kaloo ka mida muxuu ahay nimanka sharikaadka dayuuradaha sameeyey oo muxuu ahay asaasay, oo iyadoo dhibka uu socdo intaa ummadda kala gurayay oo dibad iyo bannaanba u kala guray ilaa hadda aan noqonnay meesha aad aragteen ee muxuu ahaayey gobol kasta iyo magaalo kasta hadda
dayuurada loo raacayo waa quwal khayr bay ka mid yihiin awoodaha khayrka badan yay ka mid yihiin isgaarsiinta oo telefoonnada waxaa weeyaan dadka sameeyey waxay ka mid yihiin quwal khayr weliba telefoonnadan iyo isgaarsiintani waxaan xusuustaa waqtigee ugu darnaa waddankeenna faallo ka baxday idaacada London ee Ingiriiska in ay tiri Soomaali iyadoo wadcigaas dhibka badan ku jirto isgaarsiinta meeshay ka gaareen Afrika oo dhan kama gaarin marka waxaa rag baa ka shaqeeyay sidaa oo saas oo kale marka intaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa quwal khayr oo dadkii ummaddan wax ka soo badbaadiyey aan dhibkoodana waxba aanan dhibna u geysanin khayrkoodana ka shaqeeyey ayaa quwal khayr la yidhaahdaa wayna badan yihiin saan u sheegnay waxaa weeyaan xawaaladaha lama tirin karo sharikaadka dayuuraha lama tirin karo sharikaadka ganacsiga lama tirin karo kulligood waa sidoo kale ayay yihiin marka dadkaasoo dhan waxay qayb ka qaateen waddanka badbaadintiisii waxaan marka sidaa u leeyahay ummadda qofkii anfaco oo meel uga soo baxo waa in loo ilaaliyo sharaftiisa iyo qiimihiisa iyo camalku ummadda u soo qabtay in loo tixgeliyo oo lagu jeclaado oo lagu ammaano ayuu inaga mudan yahay laakiin waxaan ka xunnahay sidii mar hore aan fiideo hore uga hadlay in dad intay furteen YouTube ama Facebook ay halkaa fadhiisteen ay dad waaweyn oo cudamo ah oo ummadda badbaadiya dhinac culamo ah dhinac ganacsato ah dhinac wax kasta ah wax ka sheegayo oo aflagaadeynayo marka intii anigu aan waday fiidiyahan aan ka hadlayay mawaadiicdan waan iska ilaalinayaa inaan qof magaciisa soo qaado laakiin halkan maanta waxaan u duubay oon gogashaa u sameeyey gogol dhaca waxaa weeye in hadda qof baan anigu magacaabayaa waxaa weeyaan waa sheekha ama xaaji Axmed Nuur Jumcaale yaa waxaan arkayaa dad dhalinyaro ah oo aabbahood oo kale u yahay ama awowgood oo kale yahay oo sheekhi wax ka sheegayo oo aflagaadeynayo oo aan inaba ixtiraam iyo wax ay leeyihiin aan midna jirin ma garanayo ulajeedada yacni waxaa weeye xasadku ma fiicna sidiisaba alxasad ya'kulu alxasanaat kamaa ta'kulu naaru alxataba waa xadiis oo ninka la yidhaahdo imaamu albaqdaadi uu waa xasan yiri marka sidaa daraaddeed ma garanayo waxa dadkaa ku xambaarayo sheekhaas waxaan ognahay ummadda dadka badbaadiye kuwa kowda ka yuu ka mid yahay oo waxaa weeyaan waxyaabihii uu sameeyey ummaddani way anfaceen ilaa haddana sidii weeye haddaan fiirino marka sheekha anigu isma naqaano isma aanan baranin laba goor yaa si un oo sudfo ama caabir siday carabtu tiraahdo yaan marna magaaladan hadda aan joogay Khartuuma ayaan mar isku salaanay isagoo booqasho ku yimid marna magaalada Jabuuti ayaan isku salaanay aqoon kale oo naga dhaxayso iyo waxaan ka garanayo midna ma jiro laakiin waxaan arkayaa ummadeenna wuxuu u hayo iyo wuxuu u qabanayo waxaan ogahay ama ka warqabaa sheekhaasi inuusan shaqada uu sharikaadkiisa ka shaqaynayo inuuna qabyaalad u fiirinin oo nin alla ninkii karti iyo cilmi iyo caqli leh si uu u hormariyo wixiisa inuu uu shaqaalaysiinayo yaa aniga ii muuqata waxyaabaha hadda aan arkayo dhalinyarada ay sheekha ku xagxaganayaan reerkiisii ayuu shaqo siiyey reerkiisa oo wuu ku mahadsan yahay reerkiisii inuu shaqo siiyey oo taasi maceeba
وقرآن كان ميدن أقرنين وآت ذا القربى حقه والمسكين وآت ذا القربى حقه في القرآن كصدق عبري حقه بوير وحاوي كان قرابة حقيسة لما دهن وآت ذا القربى حقكم حقين إذنك حولين السيا لما دهن استقع بلالي وبليه هيبة محايا لإلهي وحونا فري إنا صلة الأرحام أيو إلهي نفري سيدا درادد والأكتي النبي عليه الصلاة والسلام إن أويري الصدقة يعني صدقة حديثك معريسة أو قرابة اللغو صدقة يستو لما أجرب إليه ذهي صلة وصدقة وقرابة حرير إيو صدقة لما أجربه هلي marka ilaahay wuxuu ugu talagalay bulshadan muslimiinta sideedaba qolo walba yani qabyaalada in si fool xun oo loo adeegsado ma oo ama dan lagu raadsado ama ummadda lagu dumiyo waxaa weeye cid walba oo maalqabeen ah oo madax ah wixii iyadu ay leedahay maaha waxay ummad leedahay inay ku naas joojiyaan in ay soo qaadaan dadkooda masaakiinta ah haweenka agoonta ducafada dadka inay soo qaadaan marka cid walba hadday ciddooda kor u soo qaado inta soo hadhana ay isugu nimaadno oo markaas sidaa aynu muxuu ahay u gargaarno sidaasuu ilaahay ina farayaa marka waxaa weeye qaraabadiisuu wax siiyey wax hadda la isku ceebeeyo ma ahe waa wax la isku ammaano ilaahayna uu raali ka yahay marka aniga waxaan saa u leeyahay war dadka ummadda wax u qabtay ee ummadan badbaadiyey ee hadda dhisayo waxaa weeyaan yaan la xagxaganin maalin anigoo meel marayo oo nin dhallinyara uu baabuur igu wado yaa waxaan dhismadan weyn ee zooba laga dhisayo maxay tahay markaasoo waxaa la yidhi hormuud baa iska leh sheekadii baa marka wax la wadaba nin dhallinyaro ah oo ninka baabuurka wada ah yaa wuxuu yidhi qoladan waxay ku fiican yihiin wixii maalkooda ah bannaanka ma geynayaane gudaha Soomaali unbay soo gelinayaan waa xaqiiqo weeye taas waa wax lagu farxo maxaa yeelay dhismaha la dhisayo maalintii asaaskiisa la dhigay ilaa maalintuu dhammaado meeqa shaqaalo iyo meeqa ummad baa ku noolaatay meeqa waxaa weeye aalaaf baa u shaqaysa hadda sharikaadka uu sheekha iska leeyahay war marka ninkii dhulka idinka qaado oo wax idiin qabto markaas biyaa la xagxaganayaa anugu markaan sidaa leeyahay waa idiin sheegay sheekha ma aqaano mar baanan muxuu ahay laba mar baan is aragnay wax jaah iyo adduunye iyo wax aan ka doonina male ee waxay iga tahay xadiidkii nabigeena macnihiisu u ahaa man radda cirdi akhiihi radda allaahu cirdahu yowma alqiyaama qofkii walaalkii oo hilbihiisa la cunayo wardaaya yidhaahdo oo ka celiyo ilaahay baa isagana hadhow cirdigiisa naarta ka ilaalinaya intaasay iga tahay marka waxaa weeye dhallinyarada ragga awowyaalkoodoo kale ah aakharadooda yay iibinin adduunkooda yayna halaagsamin ummadda yayna duminin waxaanay ku hadlayaan ee maalin walba ay ruux saaran yihiin waxaa kaloo arkayay nin dadkan hadda loo soo doortay muxuu ahaayey gobollada sida masalan galmudug oo kale ninka loo soo doortay qoorqoora oo ummadoo dhan ay muxuu ahay u mahad celiso madaxweynaha u mahad celiyey oo nimanka ay madaxweynaha u bixiyeen gobollada dhan u mahad celiyeen iyo shacbigaas qiimaha badan oo iyagoo hadda un la asaasay la yagleelay saddex muxuu ahaay qabtay shir Soomaali u qabtay si ay Soomaali isku dhinac u socoto oo ay u walaalowdo mid yani caynayo xaganayo qadfay wuba qadfayaaba qadaf ma taqaanaan qadaf yuu qadfayaa xaas waxbuu kufsaduu leeyahay war waxaasoo kale yaan la ogolaanin inuu miyadiiha ka baxo yaan la ogolaanin fawdadan hala joojiyo haddii kale waxaa ma annagu ma Faransa oo kala noqonayna iyo Belgium oo kale oo intay nabiga ay nacaayaan oranay taa xuriyatul kalaam waxaa weeye xuriyadu xuduud bay leedahay
dadka culamadaada waaweyn yaan la duduminin sheekha oo ashariga ee maxamed al-Ghazali yaa wuxuu arkay dad xagxaganayo wax ka sheegayo laba sheekh oo mujaddid ah oo muslimiinta ka mid ah oo midna la yidhaahdo al-imaam maxamed cabdu mid kale la jamaaludiin al-afghaan dad wax ka sheegayo arkay markaas wuxuu war ummadan cudamadeeda dadkeeda waaweyn way duminayaan yurub iyo galbeed iyo ameerikana mid aan wax uu yahay iyo macno uu leeyahay aan jirin ayay muxuu ahaay cirkaa geynayaanoo taallo u dhisayaan marka taallo u dhisayaan markaan leeyahay taallo annagu hadda yacni wax qiimo inoo leedahay male diinteennana taallo waxba kuma falayso waana gef waxyaabahan taalladan iyo la leeyahay maxaa yeele waxaa la rabaa qofka markii oo muxuu ahaay magaciisa in la waariyo sida haddaba culimmada ay sameeyaan soomaali oo muxuu ahaay madrasada imaamu shaafici madrasada imaamu nawowi jaamacadda kada maa lagu bukhaari maa lagu yani waxaa weeye jidadka dadkeenna waaweyn maa jidadka iyo lagu magacaabo iyo muxuu ahaay iyo saasoo kale sida hadda madaxweynihii soomaali oo dhan ay jecleed muxuu ahaye aadam cabdullaahi cusmaan garoonka loogu magacaabay wuu mutaa soomaali oo dhan raalli bay ka tahay sidaasoo kale dadka loo waariyaaye dhagax meel laga qotomay annagu wathaniyiin ma nihin marka sidaa daraaddeed waxaa weye ummadeenna cudamadeeda dadkeeda waaweyn iyonan duminina aan dhisno haadaa wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu